luqda sheekadu luflu daraniyo nuur magaadhine luqda sheekadu luflu daraniyo nuur magaadhine waxaan leeyahay adigoo ladan oo isku laasimay waxaan leeyahay adigoo ladan oo isku laasimay liibta caashaqa aynu loole warka soo lali liibta caashaqa aynu loole warka soo lali khiyaarta wada naga dhageysanaysaa waxaanu soo gaarnay barnaamijkii usbuucan aanu bixinay usbuuca siyaasadda bariyahan waxaanu la soconnaa in musuqmaasuqu uuna ku koobnayn oo keliya wadamada Afrika ama wadamada saddexaad loo yaqaano hase yeeshee ay wadamada galbeedka gaar ahaan Noordidka oo aad iyo aad loo oran jiray inay tahay wadamada keliya ee musuqmaasuqa aad ugu yar yahay laakiin waxa la cadeeyay in musuqmaasuquna ka jiro halka Norway iyo waliba wadamada Noordiga haddaad jecesiin haddaba inaad nagala qayb qaadataan barnaamijkan ood fikradiina ku soo darsataan waxaad nagala soo xiriiri kartaan mawjadaha gaagaaban ee maqal radio telefonka ah 2236 waxaan ognahay in isku shaandhayn fara badan lagu sameeyay oo waliba wasiiro fara badan oo ay 5 kamid ah u raacay xaadku gaar ahaan wasiiro aad ugu quwad weynaa ee wadanka Norway magac ku lahaa sida Erik Solheim waxaan barnaamijkan ka daba marti noogo ah oo ka wareysan doonaa oo wuxuu dooldoolosha xilibaan Faadumo Cali Madar oo caawa marti noogo ah Faadumo Cali Madar ku soo dhawow barnaamijkan siyaasadda ee usbuucan u bixinay aad baad u mahadsantahay maxaad isleedahay hadaba Faadumo bal anagu gudaha markiiba u sii galayna maxaa ku soo kordhay barorta dalka Norway usbuucan isbedelkan yimid intaana ban u gelinba musuqmaasuqa كلي waxa ku soo kordhay waxa weeyaan isku shaandhayn lagu sameeyay wasiiradii ku jiray baarlamaanka kamid aha oo awilba imika dawladan aynu naqaano coalitionka ama wadaaga dawlad wadaaga ka jirtay waxad moodaa in wasiiradeedu hadii jeer ma hadaw la isku bedbedeli jiray waynu uga baranay taas laakiin waa markii horeysay 3 wasiir hal mar la soo geliyo cusub وصدحدba ay ku cusub yihiin golaha baarlamaanka iyo wasiirnimadaba marka taas ruuxday waxaad moodaa inay ruuxday siyaasadii oo dhan sideedaba marka la bedelo nin khabiira oo meesha ku raagay dabad garanaysayo taasuna rag fara badan oo kale bay mala baqtin gelisaaban sidaayo waxa batay doodii ba badatay markii saddexda la soo geliyay la bedelay ninkii loo jiray Erik Solheim runtii ahaanin de uu ahaa kaliya maaha inuu wasiir ahaa laakiin waxaad moodaa rol weyn inuu ka ciyaari jiray arrimaha dabadda ee Norway xitaa nabadoon oo kale rolkiisu haystay marka Faadumo waxaan ognahay in Erik Solheim ka dhawaajisay wasiir badan ay garaafatay maxaa keenay isbedelkan horta waxa jiray in badan imika dawladdan wasiiradu bedelisay saddex xasuusato wasaaradihii wax laga bedelay tii ugu badnayd waxaan noqotay wasaaradda la yiraahdo caruurta iyo sinaanta 4 wasiir ba soo maray intii dawladdan jirtay wad xasuusataa wasiirada ay kamid ahaayeen ani gabadhii horta u horeysay la eriyay waxa loo jiray Karita Bakmilom waxay mutaysatay ma garanaynay marba iyadoo TV-yada ba laga eriyayba iyadoo TV-ga lagu hayo ayuun baa laynagu yidhi wasiirnimadii xilkii waa laga xayuubiyey marka iyada xilka xayuubin baa lagu sameeyey Karita markay tagtay Manuela ku xigtay Manuelana been baa lagu qabsaday waxa la yidhi adiguna saddexdan kalaba isku arrin baa lagu eriyay waxa lagu eriyay waxa weeye saaxiibadood bay ayay ma garanaysaa garab siiyaan ama garab dhaqaalaha siiyaan ama waxyaabo kale مثلا kale gabadha Manuela loo jiray ahayd gabadhii kaliya madoobeed ee ilaa imkantu taariikhda fahmayno wasiir ka noqotay Norway waxay doonaysaa inay ka shaqaaleysiiso waxa la yiraahdaa wakaalada caruurta qof ay hore isu yaqaaneen saacada wada firtay taasna waxay galaafatay xilkeedii loo dhiibay ku cusbaydba 6 bilood iyadoon haynba marka iyadana xilka xayuubin baa lagu sameeyay anika baa ku xigtay Lisbon kana imka lagu haystay inuu 15 milyan siiyeen inay saaxiib yihiin shirkadiisa marka wasaaraddaas waxay tii ugu socodka badnayd waxa kale iyadana isbedel lagu sameeyay wasaaradda difaaca iyo 2 dumar oo loo kala bedelay wad xasuusataa ana Greta Erikson gabadhii loo jiray lagu bedelay Greta Farmo
oo waxa kaloo isbedel lagu sameeyay wasaaradda caafimaadka iyadana 3 wasiir baa iyadana soo maray hookon weyn xasuusanaa iyo wasiirka imika magaciisa laawaya ana Greta oo imika ka iyadana wasiirka hore difaaca oo imika wasiirka markaas waxaad madaa intii ay dawladan wadaagi haysatay in badan de wasiirada la isku shaandheynayay hase ahaatee Lisbaken markii imika wasiirnimada laga eriyay dad badan ba waxay leeyihiin xanaaqii uu xanaaqay ayuu maartay kula dhacay inuu Erik Solheim eriyo dabatana uu 3 wasiir dhigto dadna waxay saadaalinayaan inay leeyihiin waxa laga yaabaa inuu dad firfircoon uu meesha keenay si markaa ay SVO hoos u dhacday ay u soo kacdo hadad laakiin eegtid boosaha SVO haysato ama boosaska haysatee wasiirada waa boosaskii ay Norway ka dhaqaaqisay waa lafdhabarkii markaas Erik Solheim wuxuu ahaa super ministerka kaliya ka jira Norway buu halaba boosood oo khatar isku hayay markii hore waxa isaga loo magacaabay wasiirka deegaanka dadna wuxuu wasiir deegaan hadii ilaa magacaabay anigu lacag sidin wadamada doona deegaanka inaan kala hadalo ay u badan yihiin wadamada gaajada ama soo koraya dematay karo deegaanka ma hadli karo marka wasiirka deeqdana hal igu daro dadna wuxuu isku hayay wasiirkii deeqda iyo kii deegaanka markaas in badan buu runtii halka ku fadhiyay marka anigu shakhsi ahaan waxaan leeyahay way ku fiicnayd in la kala qaybiyo wasaaradaas oo waa laba aad u culus waa laba boos aad u culus marka Lisbaken de wuxuu geystay 2 nin oo firfircoon dhalinyaro ah labadooduba ay yihiin runtii dadka inta badan marka waxa lagu haystay wax khibrad ma laha wasiir hore ma soo noqon waxaas laakiin dad taariikhdooda siyaasadeed buu eegtid iyo waliba da'dooda rag yarna maaha waa 4 anu ma garanay da'dooda inta Soomaalidu inta yaryaraan iyo waaweynaan u taqaano laakiin labadooduba 4 way ka weyn yihiin waa 40 jir iyo 40 jir bay kala yihiin wax barasho sare haystaan labaduba waxyaabaha dhinaca siyaasadda wax ka barteen waxay ku soo jireen siyaasadda laga bilaabo adu 2001 ilaa 2002 ayay u soo hayeen magaranaysa xilal badan oo kala jaada haddaan Faadumo ka dhex galo xisbiga SVO waxaad moodaa inuu sii wiiqmay markii intii ay ku darsameen dawladana isku biireen maxaa keenay inuu xisbigan sidaa u wiiqmo qaar waxay leeyihiin yaasti baa ku badatay oo wax walba xisbiga Arbeider Party oo waliba aad ka tirsantahay ay soo jeediyaan inay ku raacaan iyaguna markaa waxay ku doodayaan baa noqon maadaama aan dawladda ka tirsanahay de laf dhabartiiba xuduud sidaad ka dhawaajisayba waxay hayaan baatiri wasiiro badan oo quwad ku leh marka maxaa keenay inay aad kan u wiiqmaan intaan horta u sii gelin arrimaha xisbigan waxay la socotaa mawjad qabsatay dhinaca siyaasadda bidixda ee adduunka dhan saddex xasuusatid bay marka Denmark wad xasuusataa Sweden wad xasuusataa Jarmalka wad xasuusataa Finland wad xasuusataa Ingiriiska wad xasuusataa waxa wata garabka midigta taasna waxa keenaysaa in hada jeer bulshada maaragtay aragtidooda siyaasadeed bas bedelaysa dadku waxay xiisaynayaan siyaasadda dhinaca midigta maadaama ay adduunka de waxa weeyaan baqdin maaragtay waxa timi in la kala baqayo hada jeer wax laga baqaa in maaragtay dadka ajnabiga ama muslimiinta ama waxaas adduunka ay qabsadaan marka dadana cunsuriyiintii iyo dadkii de maaragtay la oran jiray conservative-ka wadanka si kale iyagu siyaasad kale u fikiraan kuwaasaa magaranaysaa xoogii awoodii siyaasadda la wareegay berigii hore siyaasadda dhinaca garabka social democratic dadka u roon soo galowga iyo waxaas ayaa siyaasadda wadan jiray oo in badan bay runtii iyaga laftirkooda ay siyaasadda haysteen Arbeider Party roolku ciyaaray marka dad aragtid maaha xisbiyada ugu jilicsan ee la oran karo xisbigan waxa weeyaan xisbi siyaasadda dhinaca bidixda ah waa xisbigan wuxuu ciyaaraya isagu rool dhinaca midigta ah oo ka durkay halkii uu joogi jiray ahayd dhinaca bidixda anigu markaas waa eego imka hadda eegtid waa xisbiyada dhinaca qaxoontiga kala ugu adag ajnabiga de way u doodaan laakiin sidaas macnaa ugu masii jajabnaa centerka maaha midigtay ku sii socdaan waana kala qaybsan yihiin Arbeider Party markaas SVO waxay noqotay xisbiga kaliya ee maaragtay lagu tilmaami karo socialist ee daneeya arrimaha dadka jilicsan iyo arrimaha dadka maaragtay in ajnabiga iyo in adduunyada u dooda waxyaabaha meelaha xaqdarrada ka socdaan sida Falastiin iyo meelahaas moogtahay marka waxa hadda looma baahna adduunka hadda meel kale u jeedaa waa gartay Faadumo adigoo markaa xisbiga shaqo waxaan ognahay inaad ka tirsantahay xisbiga shaqaalaha golaha deegaanka Erik Solheim idinku sidoo adiga gaar ahaan xisbi ahaan kula muuqday
ma tarat miyuu ku hayadaan afka qalaadba kulamana xisbigan shaqaalaad ka tirsan tahay mise waad u baahnaydeen in meeshaas sii joogo haddaad eegto si kale kugu dhigo ma ase دولة هان يعني دولة أربد باديجا كسو هرجدان مسوات راعسنتين إنه ميسيجو ما إيريك سولهيم يعني أربد باديجا يو أربد بادي العامبا wuxuu ahaa nin ay nuruujiga kalsooni badan u hayaan sababtoo ay tahay hadda jeer dee nin magaranaysaa wuxuu ahaa weji qurux badan iyo dhaqan wanaagsan ka muujinayay arrimaha dibadda isla markaana ahaa nin khabiira oo magaranaysaa khibrad fara badan leh markaas waxyaabaha siiyay Eric Solheim inay dadku jeclaadaan dawladuna ay dee ku kalsoonaato waxa kamida heshiisiyadii badan ka qayb qaatay dad aan loo gali jirin oo aan wada hadalba dialoogaba aqoon ay kamid yihiin Tamilka iyo Sri Lanka xalkeedu adka oo arintii murugtay wuxuu ninkii horeeyay soo fadhiisiyay wada hadal siiyay Falastiin uu ka qayb galay magaranaysaa nabadeynteeda uu ka qayb galay Soomaaliya xitaa dhowr jeer butiga loo diray qayb galay miro badan oo furud badan oo miro badan oo ka dhashay Sri Lanka ma jirto may kamu keenin laakiin haddana dee arrinkii magaranaysaa maadaama Nuruujiga hada jeerta iyo waxyaabaha ku soo caan baxeen waxa kamid ah nabadeynta iyo ka qayb qaadashada magaranaysaa inay dialoog iyo maaragtay Fred of Fortune waxay yiraahdaan ay sameeyaan markaas isagu dee roolkaas u ciyaariyay waxba yaanu ka midha dhalin laakiin meeshii buu galu ka muuqday isaga iyo Torbjörn Yaklan iyo maxaan ku rahdaa ninkii loo dhin jiray Bundavik iyo Eric Solheim waxay ragga u cadcad ee qaybta nabadeynta uga qayb qaataa marka saas respect badan loogu hayay dee uu dawladana ugu fadhiyay magaranaysaa qiimo badan laakiin marka la eego anigu shakhsi ahaan uma arko nin firfircoon oo xitaa maaragtay labadan boosood isku hayo runtii ka adkaa laakiin khibradda iyo respectiga badan loo hayay baa keeniyay in dee ay u arkeen magaranaysaa dawladdu in culus ka tagay meeshii haddaan si kale u dhigo Eric Solheim markuu isagu xisbigan shaqaaluhu markay haysatay abartii ra'iisul wasaaradii ka horeysay xisbigeena ahayd Brundtland wuxuu magacaabay dhalinyaro sidaas oo kale uu magacaabo firfircoon waqtigu haystay talada oo runtii ninkan imika aad ka dhawaajisay uu eriyay wad aad buu ugu oleelanayay muna filin in la eriyo oo isagu ma filayn in jagadan laga eriyo waliba habeen dhaweyd waxa lagu la kaftamay in inankiisu u yimid oo lagu waa lagu ceyriyay marka maxaa keenay isagoo ninkii u oleelanayay inuu dib u soo noqdo oo marka baybagani meesha ka socota ilaa imika la garan la ayahay xogta xagee ka socota horta siyaasaddu saaxiibtinimo ma laha siyaasaddu waxa weeye waa game la ciyaarayo marka gamekaasi marna uu ku gelaya marna ku geli maayo marka inkastoo Eric Solheim xitaa iska badaa inuu ololeeyo Lisba kana maalmihii dhawtay la haystay lagu haystay musuqmaasuqa dib wuxuu ahaa nimankii toos meediyaha garabka u siiyay difaaciyay laakiin hadda jeer marka laga fadhiisto siyaasadda ee la doonayo in magaranaysaa talaabo hore loo qaado saaxiibtinimo ma noqonayso waxay noqonaysaa wixii lagama maarmaan in la sameeyo marka SV waxa imika lagama maarmaan u ah inay SV aan reerinka ka bixin sidaa darteed haddii ay saas u jirto maadaama doorashadii baarlamaanka soo dhowdahay waxay doonayaan inay noqdaan xisbi xoog faas ku socda oo kasbada codad fara badan isla markaa waxay u baahan yihiin dad firfircoon oo bulshadii dhex geli karaya oo wax walba la socda oo cusub oo maaragtay modern ah ma doonayaan odayaal maaragtay dee ku fadhiya meesha oo khibradun hayo sida Eric Solheim oo kale waxay doonayaan dad firfircoon oo 90% ku socda laakiin cod waxay ka doonayaan Faadimo cod inta badan qaybta midigta kama helayaan oo aan ognahay cod waxay ka doonayaan xisbigeena inay qaar soo jiitaan marka miyana taas noqoneen inay xisbigeena ku weeqmo haday iyagu cod waxa tir xawli badan bay ku socdaan dad badan bay doonayaan inay doortaan shalay qarqi taageersana dhinaciina soo yara durkeen oo xisbiga shaqaalaha soo yara tageen imika hadii ay xoogan ku socdaan miyana noqoneen marka inay idinka soo jiitaan shacbi badan dhinaciina iyagu danka mala cid meesha uga imanayaan codbixiyaashu danka iyagu danka mala codbixiyaashu meesha ka imanayaan arbid bari ka imanayaan iyo inay hooraha ka imanayaan iyagu danka male iyagu muhiimadoodu waxa weeyaan inay kor u soo kacaan marka waxay doonayaan siyaasad cusub oo magaranaysaa dadku bulshada badankeedu fahmayso inay soo bandhigaan iyaga laftirkooda wada aragtaayo sidii hore ma aha waxyaabo badan bay iyagu maaragtay imka isbedelay marka la eego siyaasadoodii hore dee aynu ku naqaanay marka iyagu waxa u dana inay helaan cod fara badan sanadka labada sanadood soo socda markay doorashada baarlamaanka la gaadho hadday noqoto arbeda baadhiga annaga anu waxaan qabaa anu waxaan u malaynayaa waa sida saadaasha aan u malaynayo in arbed baadhiga ku guuleysanaynin aan ku guuleysanaynin inuu sii hayo talada waa gartay wadanka haddaan usoo noqono dhinacan musuqmaasuqa
aan usoo noqon waxaa Norway ka dhacday musuqmaasuq fara badan waxaanu ognahay inay inta badan ku eedeeyaan wadamada caalamka ee wadamada saddexaad inay musuqmaasuq ka jiraan hase yeeshee halkan ayaa sida warbaahintu qorayso ama aad adiguba la socoto bal adigoo noo soo koobaya siduu ku yimid musuqmaasuqan yaa ka dambeeya ma xisbiyaa ka dambeeya ma shakhsiyaa baa ka dambeeya horta kelmadda musuqmaasuqa la yiraahdo adduunka dhow ka jirtaa laakiin reer galbeedku ma isticmaalaan umaha wax si toos ah macnaha siyaasadooda uga dhex muuqata هذا شيء waxa laga isticmaalaa wadamada maaragtay soo koraya sida Afrika oo kale way laaluush toos oo cadaan oo qaawan baa ka jira halka laakiin halkan uu ka jira laaluushku laakiin ma qaawana siro dad bomba wax loo kala qaataa laakiin uu jira laaluushku uu fara badan yahay musuqmaasuq uu jira laakiin cid ban maadaama ay wax macnaa ama dhaqan fara badan u ah ama si wanaagsan loo dabagalay ahayn sadarteed ma qayaxna marka imikun bay ku dildilaaday ragan lagu fahmay mooyaane midiyuhuna ay u fiirsatay laakiinse in musuqmaasuqu uu jiraa wadan kastana uu ka jiraa waxaad ognahay inuu wasiirka arrimaha dibadda oo isna aad loo dhaleeceynayay oo yiri waxaan nin ay saaxiib yihiin inuu lacag siiyey inkastoo isagoo ku doodaya anigu waxaan siiyey ururkooda ayaan lacagta siiyey laakiin shakhsi lacag maan siinin مين المسق ماسق ضد بنا حين مركو صاحبه اسكو تغي سميستان urur kaasoo markaa ay si gooni ugu caawineen waliba lacagtu ay gaarayso 5 milyan iyo waliba in ka badan hadii kala adiga inta kale ku sii daro doona maxaa halkaas ku yimid xagee ka timid eedayntaasi loo geystay story oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Norway wasaaradda kasta wasiirku baa ka mas'uula wixii ka dhaca dhexdeeda ama wixii ka baxa waxa weeye wasiirku baa u xil saaran waxa kale waa shaqaale marka wasiirku ma dafiri karo ma oran karo wasaaraddeeda wixii ka dhacay shaqaalahayga ka mas'uula waa sidoo ku doodayay sugu imika 6 milyan buu siinay saaxiibkiya shirkadda uu samaystay haba wanaagsanaato wuxuu ku qabanayay laakiin wasiirku waxa weeye isagu ba saxiixaya lacagta si kastaba ha noqotay marka uu ogaa in lacagtaas wasaaradda ka baxday cidda u tagaysana uu ogaa way waaban inay yaqaanaan هذا مركو هادلay la sii waraystayna waxa ku cadcadaatay oo si toos loo ogaaday inay xiriirka ka dhaxeeya kaba sii badan intii loo maleynayay marka walaay ma garanayo the story waa nin siyaasiya oo dadku jecel yihiin sida Erik Solheim oo kale ay u jeclaayeen waliba si ka sii daran baa loo jecel yahay waa nin siyaasadda maaragtay uu bisil siyaasaddiisu ma waqti doonta hamiga uu leeyahay inuu ra'iisul wasaare ka noqdo ama uu jagada uu imika ayo ka sii saramaro wiiqid ma u keeni doontaa bad is leedahay maadaama xisbigiina uu waliba ka tirsan yahay خاصة كل يدي وكنسة حكتمو يو مقرنسها وكنسة لكن وحن كبقى يابين دي وسير كأرمه دبدا ولقى قاضو وايو حوي سيبحن باي ودب سعوتها ميديهو دارين كانوا كعاديه شالي نادي وحوي ليس باكن وحي لوغا قاضي حلك حبيبينتو لوغو سميه waxay ahayd saasoo kale dad wuxuu siin jiray lacag urur yar oo ka tirsan Asfega oo dhalinyara markii dambana markii la sii qodqoday arinkii waxa lagu ogaaday inuu saaxiibkiis balacag siiyay nima saaxiibadiya inkastoo lacagtu ka badnayd 5 milyan ahayd marka dabagalkii lagu sameeyay baa la arkay ma garanaysaa marka inta badan musuqmaasuqu Norway ka dhaca dhinaca lacagta kaliya kama dhaco garaabayn fara badan baa jirto mesela boosaskan iyo ministeradan la siinayo iyo meelahan la soo dhiibay iyo waxyaabaha soo fara badan iyagu waa nooc min musuqmaasuq lacag baan meeshii la siinin mogtahay laakiin cid baan u fiirsan jirin oo waxaan jirin journalists ma xiisin jirin musuqmaasuqan hore u jiray maxaa imika keenay in xoogga la saaro la soo cusboonaysiiyo كلي سماده waxay tiraahdaa cid ku ma arkayse maxay ahayd afka buuxso bas yaa daara yaa wax baa jiray ma garanaysaa sax way cid ku ma arkayse afka buuxso hayso oran buu yiri oran inaan lagu arkayn hayso oran cid ku ma arkayse afka buuxso waxna kugu soo baxayaan صح marka qof mas'uul tahay oo lagu dhiibo wasaarad oo mas'uul laga dhigo haday doonto 30 sanadood ha qaadatay way soo baxaysaa marka hada iyagu waxay yiraahdeen cidina idin ma ogaan saawil baa idin may farfaari jirin marka simbali wax yar baa dhacay wixii yaraaba deedtana qarxiyay marka way jirtay gudida musuqmaasuq oo rasmi ah jirta oo baarlamaanka fadhida hada jeer waxyaabaha baari jireen waxay ahayd waxyaabo kale iyagu laakiin imika wax soo batay shaqadii ahayd inta la ogaaday lacag badan oo wasaaraduhu bixinayaan in dadka la siinay ahayn ay yihiin dad lukule wasiirada
waxaase u malaynayaa goor aan saas u sii fogeyn u gudbi doonaan xitaa garabaynta siyaasadda la isku siinayo ilaa hadda waxay ku caddeedoon gabadhi Manuel soo aynu ka hadlayna markii dhaweyto inay isku dayday inay gabadh saaxiibadeeda siiso shaqaaleysiiso laakiin waxaan u malaynayaa qaar kale badan inay jiraan oo iyaga laftirkooda saas kale u siiyay boosas saaxiibadood oo garab ahaan ku siiyay markaas aan waxaan qabaa un kulay ama dad gudaha ba sheegay ama meel kale un bay uga iftiintay laakiin waxaan way soo bixi doonaan mustaqbalka haddii uu qofku maartay khalad sameeyo waxaad ka dhawaajisay inuu siyaasaddu saaxiib lahayn oo marloo carab baabisay wadigan hadda sheegay in qaarkood saaxiibadeed ay sheegeen mustaqbalka inuu soo bixi doono marka sidee markaa la isku haleyn karaa ninka maanta saaxiib kula aha berrito haddii dad xogtaada iyo aad u sheegato inuu berrina dib kugu soo noqon doono siyaasadaha ujeedada markaan lahaa waxay ahayd masalan bay markaad siyaasi tahay waxaad yeelanaysaa saaxiibo badan sida markaad lacagta leedahay saaxiibo badan u leedo kale laakiin waxa laga yaabaa maalinta lacagta weydiin saaxiibadaadii aan rasmi baahayn dadkan iska tagaan way lacagta kugu jeclaayeen markaad position haysatid aad maaragtay aad siyaasi tahay saaxiibo badan baad leedahay nin minister tahay waa lagu qadarinayaa dadka la shaqeyso dhan baa ku wada qoslaya waxaad isleedahay waxa tahay magaranaysaa nin bulsho badan haysta laakiin maanta xilka xayuubin lagu sameeyo qof kasta uu ka sii jeesanaya marka taan lahaa siyaasaddu saaxiibtinimo la taa weeyaan garabayntu laakiin iyadoo ka yara duwan tahay waayo waxa weeye dadkan khasab maaha inay siyaasiyiin saaxiib ahaayeen laakiin waxa laga yaabaa inay dad garab isku siinayo si kale u saaxiib ay ahaayeen inay isku siiyaan the positionada markay noqoto Eric Sulheim arrinkiisa dee Liz Barken iyo Christian Halvorsen ugumay daayeen ninkan waa inaynu saaxiibnahay wanaagsan haddii u arkaan fursad xisbiga uga banaanaanayso oo xisbigu kor soo kacay in laba ministry sameeyaan oo labadaba muhiim yihiin haday waayo SVG wuxuu doonayay inuu saaxiibo badan samaysto uu network badan samaysto uu qabsado in wasaaradaha ugu muhiimsan meesha markuu qabsado dad badan saaxiibo yeelanay ku xirmaya marka codkiisiba u soo kacaya marka fursadaas ay arkaan marka uma xilanayaan in Eric Sulheim meesha u sii daayaan waayo waa inay hore u yaqaaneen waxaan ognahay in dhibaato fara badan oo ay ka jirto wadankan Norway oo ku saabsan haday noqon lahayd carruurta la iska qaadayo haday noqon lahayd dhibaatooyin fara badan hase yeeshee warbaahintu bariyahan waxay u badatay in musuqmaasuqan iyo laga hadlo marka ma isleedahay wax weyn oo la qarinayo waxaan la soconaaba in usbuucii u dambeeyay carruur badan Soomaaliya laga qaaday baan u qaaday oo la soo xiriireen war intee leeg bad naga siin lahayd mase isleedahay barnaamij ka weyn oo dhaqaale lagu qarinayo barnaamijkan baa jira musuqmaasuq marka warbaahintu noo soo gudbinayo qaar la qarinayo oo siyaasad kale ku daxsoon baa jirta maya cali shabaad leedahay bariyahan dambe lagama hadlo caruurahan la qaadayo waxaas horta lambarka caruurta Soomaaliyeed la qaata weyn ogno kor buu soo kacay laakiin inagu de Soomaalidu baynu eeginay laakiin caruura la qaato waa badan yihiin markaas taaliftirkeedu way soo bixi doontaa laakiin baanabanku sidii loogu talagalay uma shaqeeyaan absolutely uma shaqeeyaan waana mid ku soo bixi doonta hadii la dabagal lagu sameeyo meediyuhu baan xiisaynin la hadda markaas xitaa waxaan ogahay anigu mataqaanaa Oslo commune marka la eego gobol ahaan baanabanahoodu ka dhaqan duwan yihiin gobolada kale marka loo eego marka kulley hadii la dabagalo waxaan qabaa in baanabana lagu helayo sharciyaha aad u fara badan jibiyeen iyo xaq darra ay ku qaadanayaan caruurta badankooda siyaabahay ku soo galiyaan baabad arkaysaa inay sharciga ka boodayaan marka kulley hadii dabagal lagu sameeyo waa la ogaan lahaa inay qalad ku dhaqmayaan laakiin waxa loo baahan yahay dad u fiirsada oo meedihii dabagasha la ogaado inay maartay shaqada ay qabanayaan aan ahayn tii loogu talagalay Norway way samaysaa in caruurta maartay la koriso waalidka oo ay rabaan sharciyada raacaan laakiin dhinacoodana dabana iyaguna sharciyada ka raacaan way caruur badan waalidka ka qaadeen baa jiro baaba'ayba waxaad ognahay gobolada badan oo Norway ka tirsan in marka caruurta qaadan ay u raadiyaan hadan intaana toobay ka bixin inay reer Soomaaliya oo marka degan oo deganaansho fiican shaqo wanaagsan meel wanaagsan ay la raadiyaan Oslo ka jirta taas oo kale inay soo way la boodaan mise waxay la raadiyaan intayna qaadin reer Soomaaliya oo degan oo marka inay caruurtii u geeyaan si dhaqankii iyo diintiba ay u qabsadaan badisleedahay adigu ayeen ka maartay xogahan waxa ku xidhan tahay de horta caruurta la qaaday iyo macnaa inay yihiin wax degdeg loo qaaday oo isla habeenkiiba guriga laga kaxeeyay inay yihiin wax la arko inay caruurta dayacan yihiin oo muddo ay haystaan laakiin inta badan Oslo isku mid xaluujisay inay family ajnabi u raadiyaan ama ay dad ajnabi shaqaaleysiyaan
baarlamaana Oslo iskuma taxaluujiyaan laakiin waa arrin loo baahan yahay runtii in loo fiirsado marka waxay mudeen soo dabcayaan oo ay ogolaanayaan inay haddii isu diyaariyaan faamiliyo badan oo ajnabi inay caruurta qaabilaan ay siiyaan waxa laakiin jiro aniga warwargeliya waxa weeye sharcigan caruurta waalidka lagala wareegayo sida degdega mas'uuliyadda waa sharci markiisa hore lagu xiray qodobo aad u adag qodobadaas oo buuxsamin bay laakiin isticmaalaan baana sidaan ku arkay inta badan marka kulay qorshaha waxa igu jira aniga faalmahan inaan bal dabagal ku sameeyo sababta ay maadaama sharcigaas wuxuu dhigayaa ilmahaas in macnaa ma jirdil xun lagu sameeyey ama waalidku yahay mid qayr al-mas'uul ayaa ka mid ah qodobadu sharcigu ku xirayo in la isticmaalo inta badan markaas labada ma wada buuxiyaan Soomaalidu inay waalid qayr al-mas'uul oo ama muqaadaraad isticmaala ay yihiin ama caruurta dila dan shakhsiyan ba ku weydiyo adiga iyo xildhibaanadii kale marka loo magacaabay golaha deegaanka intii aad fadhiisateen golaha deegaanka bal generally maxaa idin qabsoomad isleedihiin waa idin qabsoomeen idinko markaa xogta taydii goonidan waa gooniye tan waxaan sheegayaa generally wixii idin qabsoomay iyo waxaad ummadda Soomaaliyeed ilaa imika isleedihiin waa u qabateen ama u qaban doontaan markii aanu horta imika cusubnahay 6 bilood baan meesha joognaa weli waxa lagu jiraa in magaranaysa meeshii lala qabsado markaas de markii horena anagu si khaldan u ololeynayna dadna Soomaalida waxaan anagii baa olole gaar ah samaysanay oo Soomaalida ka dhex ololeynay markaan ololeynay markaas sidii dadku wax u qabanaya oo maaragtay de ayaan u ololeynay xaqiiqdu laakiin waxa weeye inaad mas'uul ka tahay gobolkan Oslo dadka ku nool oo dhan ayaad representative u tahay ama u tahay qof magaranaysa ay soo doorteen marka arrimaha khuseeyo gobolkunbad ayuunbaad magaranaysa doodooda dhinac kala qabsanaysa wax gaaro aad Soomaalida u soo dhicin karto ma jirto oo aan ahayn in maadaama Soomaalidu yihiin ama ay uga badan yihiin magaalo madaxda oo gobolkan Oslo ay ku badan yihiin in loo 3 qof miiska u fadhiisato oo representative iyagu magacoodii wata ay noqdaan ayaa magac badan iyo sumcad badan bay ugu filantay Soomaalida oo waxa loo arkayaa dad bulshadii kamid ah oo systemka ka qayb qaadanaya marka magac ahaan way u fiican tahay wixii fursad ka banaanaada markaas aan aragno Soomaalida inay magaranaysa dani ugu jirtana kama dawaabanayno miiskii baabana fadhina wixii talooyin aan ka dhiiban karayna mesela bad marka arrimaha khuseeyo Soomaalida laga hadlayo taana waa ka hadlaynaa taana kama waabanayno marka taas laftirkeedu waa fiican tahay laakiin waxa jira mesela waxyaabaha laga hadlo ka soo qaad dugsiyada hoose guud ahaan baa looga hadlaya lagama hadlayo dugsiyada hoose caruurta Soomaalidu dhigtaan lama oranayo mugti laakiin marka la oranayo mesela caruurta ajnabiga dabaasha ma yaqaanaan ha lagu daro iskuulka inuu ilmuhu helo dabaal gabdhaha iyo wiilasha hala kala qaybiyo inay kala dabaashaan taa waan ka doodayna markaas waxaan leenahay waa sax in magaranaysa caruurta lagu baro dabaasha dugsiyada hoose oo ay khasab ku noqoto obligatory in caruurta la baro dabaasha way waxaan ognahay caruur badan oo ajnabi inuu baahan yihiin dabaasha bartaan waxa la oranayaa mesela la isweydiinayaa gururu daalan ama meel hablaayo tiibaanaha la badiyo lambarka tiibaanaha taga wax laga hal tiimiyaba ama 10 kiilo marta waxaan leenahay 5 daqiiqo mar ha tago marka aan ognahay in dan ugu jirto maadaama dadkeenu ahayn dad hada jeer ka baxayeen baabuurka haysan sanuurijo kale marka waxyaabaha noocaas waa laga qayb qaadanaya laakiin wax gaar ah oo oran karo waxaan Soomaalida u soo dhicinay ama u soo dhicinayna oo gaari ma jiraan laakiin waxyaabaha aan si gaar ah u xiiseeyo waxa kamid ah arrimaha baanabanka inaan u fiirsado inkastoo waa kala qaybsiino qaarnada waa riyeerinka waa guud ahaan dawladda ka mas'uula qaarna gobol ahaan ba ka mas'uula marka kuwa gobolka wixii wax ka qaban karayo waan sameyn doonaa insha Allah su'aasheeda dambe ugu dambeysna xawee hadaan dib ugu noqono musuqmaasuqan waxaan ognahay golayaasha ama Soomaalida ama gudaheeda in ay barnaamijyo badan ka qayb qaataan oo haday ururo noqon lahayd hadii ay
noqon lahayd shakhsiyanba inay markaa codsiyo dalbadaan oo codsiyadii loo soo jawaabo oo barnaamijkii kaga qayb galaan marka waxaanu ognahay inay dad badani fikrad badan u haynin inkastoo sidii dadaalayaan oo isku dayayaan inay wixii sida loogu talagalay u fuliyaan haddana waraaqihii markay xarayaan dhibaato badan qaar kala kulmi doonto oo markaa loo qaadan doono musuqmaasuqii sidii hadda aanu halkan magacaawnayba oo iyaga un xooga la saaraya story uu markaa jiraan dad badan oo xoog ka dambeeya marka maxaad kula talin lahayd inay dadkaas sidii hadday noqonay documentary sidii loogu talagalay soo xarayaan si marka dambe ay haddana u dalbadaan wixii kale ay markaa kor u sii qaadaan xagga musuqmaasuqa haddaan maadaama barnaamijka musuqmaasuqa ka hadlayno waxa ka hadlaysa dhinaca Soomaalida Soomaha mar walba horta waxa wanaagsan inuu anagu waxaan nahay dad muslina oo way wanaagsantahay inuu mar walba aynu maaragtay asluub wanaagsan inuu la nimaano oo aan laynagu tuhmin inuu nahay dad musuqmaasuq doonaya ama dawladda khiyaameynaya ama waraaqo fuujiri garaynaya marka kaba soo qaad hadii la eego dhinaca maaragtay hadda jeer waxa la Soomaalida waxay u badan yihiin dad aan ma shaqeeyaan markaas trigda iyo talsee qaataan taas ceeb maaha anigu ma arko khalad waayo waa wax jiro waa lagu baneeyay inaad trigda qaadatid ku noolaatid ama naaf ka hel ama trigda ka helda waa wax jira waa boos banaan Norwegiga bay nooga fara badan laakiin sidaas sheegtay waxa laga yaabaa wax yaroo maalayacni inay ka khaldamaan ama foomka si xun u buuxbuuxiyo ama foomkii hore aanu ama uu haduu doono intuu waraaqda u xareeyo uu dhoofo ama waxyaabaha noocaasa marka khalad isagii naftiisa u keenaysa dhaawac dabcan maadaama yahay qof aan wadankiisii joogin oo wadan kale ku noola waxa u keenaysaa bulshada intii kale ay dhibaato u keenaysaa way markuu mid khalad gala wadogtida Soomaalida oo dhan baa lagu yeedaynaya marka waxaan oran lahaa haddii aanu qofku garanaynin foomkaas loo buuxinayo ama dokumentiga laga rabo siduu u xareynayo inuu iska hubsado uu mid weydiiyo ama uu lawyer weydiiyo ama qof uga maaragtay khabiirsan u weydiiyo laakiin uu iska hubsado isagoo markaa ka fikiraya isagana inaan naftiisa dhaawac u keenin de mustaqbalkiisana ka talinaya dadkan kale de u magaciisa xambaarsan yahay ka talinaya marka anigu waxaan qabaa runtii Soomaalida badankeeda Soomaalida waxay noqotay dadkii loogu hadalhay inta badnaa Norway marmarka kamid ah laakiin dadka uma arko ugu musuqa badan leh uma arko dadka ugu criminalka badan leh uma arko dadka ugu liita laakiin intaas oo inta shaabada leenugu hayay markaad Norwegiga u fiirsatid siday u qaataan lacagtan loo yaqaan welfardiga ama trigda u qaataan wadiyabisa boqolaal kamid ah lacagta qaata oo ku nool oo si rasmi ah u qaata oo dama kale u dhoofa oo yani si toos u xadaya systemka laakiin si yaro basar loo asluub laho wuxuu diyaa aan la tuhmayn ama laga shakiin buu sameeynaya laakiin ka Soomaaliga waxa laga yaabaa waraaqdii haf buuxsan yahay wax ka khaldan yihiin ama tii hore looga baahnaa isagoon sidin ayuu iska geynaya dadna xunayaa bal nasiibkeen ku sugaya su'aashayda ugu dambeysay ku weydiinaya waxa weeye markaad 6 bilood ugu dambeysay markaad eegto shakhsi ahaan Faaduma ahaan iyo xilibaan ahaanba masalada Soomaalida hore korba u soo kacday xagga ganacsiga xaggan hadda aan ka hadlayna musuqmaasuqa xag badan oo xog waran oo inay indhuhu u furayeen imika wax badan ogaadeen oo wax badan akhrinayaan oo wax badan ka digtoonaadeen oo markaad eegto 6 bilood ugu dambeeyay iyo waqtigii hore markaad isbarbar dhigto labada dhinac Faaduma way dhacday horumar fara badan bay Soomaalidu sameeyeen guulo badan way gaadheen laakiinse markii hore waxaad moodaa in ay Soomaalidu waxa ku jirtay dadkan wadanka si wanaagsan qalbiga uga degin waxaad moodaa inaynu waliba inta badan waxa weeyaan dadka ku cusub ama dadka waaweyn ayaa wadankii mana degana qalbigoodu xagaas ku maqan yahay doofaysa waad guuraysaa ayuu qalbigiisa ka guuxaya waayo shoog bay ku noqoto wadankii markuu meeshan lama qabsan karayo inaan wadankii ku noqdo laakiin imika waxaad moodaa in qalbiga ka dego waayo generationkii labaad baa imika ayaa waaweynaaday mugti dabadna waad aragteen waxbarashadii ku soo badanayaan inay tartankii horumarkii ay dhinaca qabsadeen marka waxbarashadii lambar badan baa ku jira kuwii waxbarashada soo dhameystay lambarkii baa kor soo kacay isla markaana kuwii shaqada helay lambarkoodii baa kor soo kacay isla markaana sumcadoodii baa kor soo kacday isla markaana siyaasiyiintii baa kor soo kacday iyaguna u galay waad aragtay anagu ma ahe oo badan yihiin Soomaalida siyaasadda ku jirta iyo inta ku hamoonaysay hadda u diyaarka ah waad aragtaa inkastoo Norway ma tiriso mana yani ma dadka hada jeer buunbuuniya businesska yaryar ama shakhsiga kaliya leeyahay ama labada shakhsi leeyihiin ma buunbuuniso wad aragtay waxa shoski iyo tukaan yar yaala cidi kama hadlayso laakiin Soomaalidu ku badan yihiin businesska noocaasa waa dad shaqaysta runtii barka xaga laga eego laakiin Norwegiga waxa yaqaanaa shaqaalaha qof 8 meel ku kala hoos 4 ka soo raaxa laakiin qof tukaankiisi looma xisaabinayo marka business
businesska laftarkiisa waxa inagu inaan kor u soo qaadno magaciisa oo inuu tusno Norway-ga inaynu shaqaysanayno ganacsatanahay ayaa aniga ila haboon aad iyo aad baad u mahadsantahay Faadumo Cali Madar xildhibaan Faadumo Cali Madar sida wanaagsaneed noogu soo qodob noogu taabatay barnaamijkan aanu bixinay siyaasadan xawliga ku socotay ee dalka Norway aad baad u mahadsantahay aad mudan wadaasna waxay ahayd Faadumo Cali Madar oo ka wareysanaynay siyaasadda dalka Norway xagga musuqmaasuqa iyo isbedelkan wasiirada dawladda Norway lagu sameeyay iyo waliba arrimo fara badan oo ku saabsan Soomaalida waxaan leeyahay adigoo ladan oo isku laasimay waxaan leeyahay adigoo ladan oo isku laasimay liibta caashaqa aynu loole warka soo lalin liibta caashaqa aynu loole warka soo lalin kaalayladani lama carare leebkayga goo kaalayladani lama carare leebkayga goo